Yusuf Barnaamij ayaa wuxuu ka dhacay degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado waxaana looga soo horjeeday xukun dil toogasho ah oo ay maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku riday askari ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya. Xukunka maxkamadda oo dhacay 3 bishan ayaa waxaa lagu riday askari ka tirsan ciidamada booliska degmada Doolow ee gobolka Gado oo lagu magacaabo Axmed Maxamed Dhaqane kaas oo la sheegay 22 bishii November uu ku dilay askari kale oo lagu magacaabi jiray Dable Bishaar Cumar Yusuf degmada Doolow ee gobolka Gado. Dad u badan ehelada askariga xukunka dilka lagu xukumay ayaa waxa ay barnaamij ka dhigeen xaafado ka tirsan degmada Garbaharey iyaga oo sheegay in xukunkaas uu ahaa mid cadaalad darro ah. Qaar ka mid ah dadka barnaamijyaasha dhigayay oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in xukunka dilka lagu riday Axmed Maxamed Dhaqane loo maray waddo aan sharci ahayn isla markaana askariga dhintay lagu dilay israsaaseyn dhex martay ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya. Waxa ay ka dalbadeen dowladda Soomaaliya in xukunkaas ay racfaan laga siiyo isla markaana ay u baahan yihiin in xukunkaas dhacay dib u eegis lagu sameeyo iyaga oo sheegay in dhaqaale fara badan lagu bixiyay in xukunka dilka ah lagu rido askariga ka tirsan ciidamada booliska degmada Doolow kaas oo lagu magacaabo Axmed Maxamed Dhaqane. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa horay waxa ay u riday xukumo kala duwan askar ka tirsan ciidamada dowladda waxaana jiray xukumo qaarkood oo cabasho laga muujiyay